waftigan ballaaran ee ka kooban dhammaan maayirada gobolada Somaliland iyo sidoo kale wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga iyo wasiiru dawladda wasaaradda maaliyadda oo maanta galinkii hore soo gaaray degmada Elafweyn ayaa waxa halkaasi si jiiran ugu soo dhaweeyay qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Elafweyn gudoomiyaha degmada Elafweyn Baasha Xamdulla Warsame xogayaha degmada iyo sidoo kale dadweynaha aad u tiro badan gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamed Geela Daar ayaa si weyn gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Elafweyn iyo kadinka gobolka Sanaag ugu soo dhaweeyay waxaana isagoo goobtaasi ka hadlaya hadaladiisa kamid ahaa sidoo kale waxay wala albaabkii halkii joognaa oo degmadu warayso Elafweyn waa degmadii labaad garadayna wala ku soo dhaweynay waxaan rajaynaynaa in kulanka ay ku yeelanayaan xeergaabo annana u faa'iido noo noqdo sababtoo ah hadday ugu yar tahay waxaanu ka filaynaa markay noqdaan inay degmooyinka ay ka yimaadeen ku dhiirigeliyaan lacagta qaaraan ka dawga hadda ciidanna waanu ku soo dhaweynaa maayirada gobolada oo ay fursad noqotay inay ka helaan ay shir ku qabsadaan gobolka Sanaag بالخصوصاً دقمة عرقاو أنا بقدر الآن maamul iyo xildhibaano iyo xogayahan ba welcome baan leenahay Elafweyn si wanaagsan baan ugu soo dhaweynay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteko oo hogaaminayay maayirada gobolada dalka ayaa ka warbixiyay safar socdaalkan dheer ay gobolka Sanaag ku soo gaadheen saaka afartii waxaan ka soo jirnay magaalada Burco anagoo socdaalkayga deegaanka Elafweyn marayna gaari doonana insha Allah ma dhow Ceelgaabo safarkaygu waa shirkii dawladaha hoose oo ku qaban doona halkan oo ah hay'adaha qaar baa yidhi ma tegi karno laascaanood iyo Ceelgaaboba labada degmo ma tegi karno labada degmo doorasho ka dhacay maan sanadkan waa naga ku qabanay shirkii muxuu ahaayay Ceelgaabo sanadka dambana laascaanood baan ku qaban doonaa waa Somaliland meel mugan ka jira maaha dadka Somaliland ma sheegayo way og yihiin waxaan u sheegayaa hay'adaha jaanibka inay maayiradii dhan maanta Ceelgaabo wada joogaan maayirka magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil Cabdishakuur Maxamuud Cidib maayirka gobolka Gabiley Shucayb Maxamuud Geedi iyo sidoo kale maayirka gobolka Selal ayaa dhamaantoodba si wada jir ah uga mahadnaqay soo dhaweyntan ballaaran ee ay u sameeyeen gudoomiyaha degmada Elafweyn Baasha Xamdulla Warsame xogayaha fulinta dawladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka degmada Elafweyn iyo sidoo kale dhammaan dadweynaha degmada Elafweyn aad iyo aad u mahadcelinaynaa degmada Elafweyn gudoomiyaheeda xogayaheeda xildhibaanadeeda runtii maanta si mudleh noqda hawlgalay safarkeygii maantana waxaan joognaa degmada Elafweyn anoo ku sii jeedna Ceelgaabo sida qiimaha leh ay noo soo dhaweeyeen oo ka mahad celinaynaa maayir ahaan anigoo salaan ka sida qiimo leh hay'ale shacbiga matalayo reer Gabiley oo soo salaamay runtii inta kadib arrin weyn baanu dareernay haddaan nahay maayirada Somaliland inaanu la dareerno baahida dhinaca wadooyinka ee Ceelgaabo waxaanu aragnay maanta awal inkastoo sheeko ahayd oo aanu ogeysan laakiin xogaal oo aan dibta ka taagan gobolka Somaliland ugu weyn ee Ceelgaabo oo annagu Gabiley ahaan aanu hore u sheegnay inaanu diyaar u nahay inaanu contribution-kayga ku darsanno wadada Ceelgaabo waa wixii uu arkay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Seelaanyo ee ku dhiiraday inuu wadada Ceelgaabo u dhaxaysa Burco ee Somaliland isku xidhaysa inuu ku dhaco oo ku dhiirado wixii ku sababay ee uu dhiisa ku arkay annaguna maanta waanu taabanay waxaanu ballan qaadaynaa annagoo maayirada dalka ah inaanu dhinacayaga qabsanno oo nu contribution-kayaga ku darsanno oo nu dadkayaga ka ururino sidii wadada Ceelgaabo u dhamaystirmi lahayd cid kasta oo wada oo waxa weeyaan ku taageeraysa madaxweynaheennana waanu taageersanahay waana insha Allah inaga dhamaan doontaa waqti dhow haddaba maayirkii gobolka Sool oo ka mid ahaa wafdigani oo gaadhigiisii kula gudoomay safar socdaalkaasi ayaa xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay isaga iyo iskaafkiisii la socday walow aanay noo suurtagelin inuu nooga warbixiyo xaaladiisa caafimaad maadaama uu cudurdaar ka bixiyay wasiiru dawladda wasaaradda maaliyadda Somaliland Mudane Saxardiid Cadaani Mooge ayaa isna mar uu warbaahinta la hadlayay waxa uu tilmaamay inay safarkan ay dhamaanba maayirada gobolada Somaliland ay maanta ku soo gaadheen xarunta labaad ee gobolka Sanaag degmada Elafweyn iyo intii kale ee baaxadda dhul ee gobolka Sanaag ay kala sinmaan amaba ay kala midoobaan aragtida wada xumida baahsan ee gobolka Sanaag ragaadisay waxaana uu maayirada gobolada dalka ku booriyay in ay si weyn uga qayb qaataan dardargelinta qabanqaabada
qabanqaabada iyo qaadhan ururinta wadada Ceerigaabo maadaama uu yidhi aan si weyn uga faa'iideysanayo fursadan isu keentay maanta dhammaanba maayirada gobolada Somaliland waa markii ugu horeysay dhammaan maayirada gobolada Somaliland ay si wada jira safar dheer ugu soo gaadhaan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Elafweyn walow iyadoo la filayo maalmaha ay nagu soo socday in dhammaanba maayirada gobolada Somaliland uu xarunta gobolka Sanaag ee Ceerigaabo uga furmo shir ballaaran shirkaasi oo lagu dadafayn doono sidii loo horumarin lahaa dhammaanba gobolada Somaliland waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Somaliland Elafweyn